السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت باندين رجينيا نولل wanaagsan iyo caafimaad taam oo walaalaha sharafta badan meel kasto adduunka aad ka joogtaan. labadan marxalada kooban waa haweeneydu marka ay weynaato inay nolosha la qaadato ubadkeeda waaweyn ay dhashay, iyo haweeneydu marka ay weynaato inay nolosha la dhamaysatay la qaadato ay ku kaliyowdo odaygeeda. labadani waa laba option ama waa laba ikhtiyaar iyo doorasho oo aala ku dhaca lamaanuhu marka ay weynaadaan qaar baa waxay la noolaadaan caruurtooda oo way kala tageen ama duruufaa kala kaxaysay ama iyagaaba kale aag bedeshay. oo xilliyadii hore ee dhaqankeena waxa jiri jiray marka ay haweeneydu weynaadii ayeeyo ay noqoto aala waxay la noolaan jirtay ama ay ilaa haddaba la noolaadaan gabdhaheeda iyo caruurteeda waaweyn iyo dadka marka ay ayeeyada u tahay iyo ehelkeeda la noolaan jirtay. odayguna waa iska danaysan jiray oo gabadh yar baa laga yaabaa inuu iska guursan jiray oo sidaas marka ay ku kala separation ku dhici jiray ku kala tagi jireen. haddaba xilligan dambe ee casriga marka la eegayo dhakhaatiirta qoysku arrinta ay ka daba tagayaan waxa aad u fiican hooyada ama ayeeyadu inay la noolaato caruurteeda iyo inay ninkeeda la noolaato caruurteeda inay daryeelka ay ka helayso iyo sida ay u xanaanaynayaan ninkeedu ku siinayo ee u xanaanaynayo inaanay ka helaynin caruurta laftooda. aabbaha ama odaygu haddii uu caruurtiisa la nool yahayna sida caruurtiisu ay u xanaanaynayso ay u koolkoolinayso islaantiisa waa inuu iskala noolaado ama xaaskiisa inuu la noolaado ayaa daryeelka uu caruurtiisa ka helayaa waxa ka badan xaaskiisa uu ka helayo. haddii nuxurka aynu soo ururino waxa ay qormadani tilmaamaysaa in lamaanuhu marka ay weynaadaan ay wada noolaadaan oo aanay caruurahooda ku kala dhex milmin ama caruurahooda aanay ku kala noolaanin, odayguna aanu caruurtiisa la noolaanin ama aanu meel kale tagin, islaantuna aanay gabdhaheeda iyo caruurteeda waaweyn iyo aanay la noolaanin, iyagu inay isku soo hadhaan ayaa waxay helayaan daryeel aad u badan oo midka kale inuu uga daryeel bato caruurtiisii baa la arkaa. halkan markaa waxa ay ka soo qaadaan oo halkan laga eegaa xataa mooral ahaan inay ka farxad badan yihiin marka ay wada joogaan ee ay isku dul waaweynaadaan odayga iyo islaantu oo kaliya daryeel iyo nafaqo oo qura iskuma qabanayaan xataa farxadii. oo waxa ay leeyihiin sheekadu sida ay iskugu baxayso ee labada qof ee waaweyn ay u wada sheekaysanayaan haddii mid ka mid uu caruurtiisii la noolaado sidaas farxadda iyo sheekadaas kama helayo. oo sheekadii si kastoo ay caruurtiisii u tahay oo sheekadooda ay ku raaxaysanayaan ama sheekadooda ay ku farxayaan haddana labadan qof ee waaweyn ee isqabaa marka ay wada joogaan ayaa nuxurka sheekadu u fadhiisanaysaa. sidoo kale waxay psychologically ahaan ay tilmaamayaan wada jooga laftooda inay farxad ka helaan. dadkani waa dad waaweyn, gogashu waa iska gabaabsi, galmo iyo waxaasi ma jiraan haalaaba dadku hadday waaweynaadaan waxaynu ka hadlaynaa dadka aadka u waaweyn ee dee markaa imika meelaha qaar lagu kala xanaaneeyo marka qurbaha la joogo. dadkan waaweyn inay isla noolaadaan xataa iyagoo awoodoodu aanay aad u weynaynba waxa ay keentaa in moralkoodu uu fiicnaado, fikirkooda iyo xataa sida markaas ay u wanaagsanaato. xataa dhakhaatiirta qaar waxay gaadhsiinayaan xaragadoodu inay badato oo inay nolosha xayaatadoodii inay aad u xaragoodaan oo midkii kale uu xaragoodo oo uu isku qurxiyo. oo waxay leeyihiin xaragada lafteeda waxa dhalinayaba midkan uu la joogo. haddii laakiin qof weyn ahaan ama beeshin ahaan loo tixgeliyo niyadiina waa ka gaboobayaan, jirkiina dee waa uu gaboobay, moralkii xataa waa ka gaboobayaan, farxadii way ku yaraanaysaa, isqurxintii iyo xataa xaragadii iyo noloshii inay ka quustaan
ayaa dhacaysa bay leeyihiin oo sidaa markaas ay markiiba xaaladooda ay ku sii cakirnaato markaas lamaanuhu inay isku waaraan ay wada joogaan bay qormadu runtii ay xooga saaraysaa intaas aynu ku soo ururinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh